Salaamu calaykum halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxaa qayb ka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo amar degdeg ah duldhigay madaxweynaha Hirshabelle Cali Guutlaawe Xuseen iyo taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage iyo shir degdeg oo ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho oo laga digay in al-shabaab ay weerar ka fuliyaan iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo warkaasi ku eedeysay inay ka dambeeyeen kooxdii horeetay ee farmaajo oo doonayay inay qalqal geliyaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde madaxweynaha dalka Uganda oo xilkii ka ceyriyay wiilka uu dhalay kadib markuu dhawaan ku hanjabay inuu la wareegi doono caasimadda dalka Kenya ee Nairobi iyo ciidamada dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya iyo al-shabaab oo ay dagaal qaraar markale ka dhaxmareen qodobadaas iyo qodobo kale oo daasan ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato hamoogan subscribe saarto YouTube-ka kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid aynu ku horeyno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shir degdeg ah iskugu wacay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guutlaawe Xuseen iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage kulanka degdega ayaa ujeedkiisu ahaa in laga wada hadlo xaaladda ammaan ee Hirshabelle oo u muuqatay maalmihii ugu dambeysay inay kasii darayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa su'aalo adag ku weydiiyay kulanka madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guutlaawe Xuseen oo uu sheegay inuu dayacay ammaanka iyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku amray inay hogaamiyaan dagaalka ka dhanka ah kooxda ee laga sameynayo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa yiri dowladdu waxay bixinaysaa tillaabo walba oo lagu taageerayo ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxaana looga baahan yahay hoggaanka sare ee beesha Abgaal inay hogaamiyaan howlgallada gobolka Shabeellada Dhexe sida aynu ka soo xiganay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiisha kale faray inay dadka u abaabulaan sidii ciidamada ay uga garab dagaalami lahaayeen isla markaasna ay u taageeri lahaayeen qorshaha dowladda madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in uu dadaal xooggan ku jiro sidii beelaha Soomaaliyeed loogu abaabuli lahaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo muuqda iminka inuu wajiyo badan yeeshay ugu dambeyntii kulanka ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu soo gunaanaday dhinacyada kala duwan ay u istaagaan sidii loo qaadi lahaa tillaabooyin ka dhana kooxda al-shabaab loogana sifeynayo gudaha dalka gaar ahaan gobolada iyo meelaha ay ku sugan yihiin ee ay beeshu degto warar lagu baahiyay warbaahinta ayaa lagu muujiyay in garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ay ka dhici karaan weerar argagixiso garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa laga digay in kooxda al-shabaab weerar ka geysan karaan shaqaalaha iyo howlwadeenada dowladda ayaa lagu amray inay foojignaan ay galaan isla markaasna ay dhaqdhaqaaqyo la socdaan si looga hortago khabraacyada dhinacyada ammaanka inay qalqal ku yimaado warqad ka soo baxday maamulka garoonka ayaa lagu sheegay inay jiraan xaalado amni oo u baahan in dib u baaris lagu sameeyo balse warkaasi sida dowladda federaalka ayaa been abuur ku tilmaamtay waxayna sheegeen in warkaasi ay soo abaabuleen kooxo nabadgelyada ka soo horjeeda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in amniga garoonka diyaaradaha Muqdisho uu yahay mid la isku haleyn karo isla markaasna aysan jirin wax cabsi ah oo ku wajahan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxa ay sheegtay wasaaradda arrimaha gaadiidka iyo duulista hawada dowladda Soomaaliya in ciidamada ammaanka garoonku ay si wanaagsan ammaanka u gudanayaan shaqadooda isla markaasna ay foojignaan ku jiraan balse aysan jirin wax qalqal amniya waxay ku eedeeyeen warqadda been abuurka ee la faafiyay inay ka dambeeyaan kooxdii horeetay ee farmaajo kuwaas oo doonaya inay qalqal geliyaan ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho
ee aadan cadde si dowladda loogu eedeeyo inay ku fashilantay sugitaanka amniga magaalada muqdisho ee caasimada wadanka xilli dowladdu ay dagaalo adag kula jirto. Waxay sheegtay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada in dhammaan aysan waxba ka jirin wararka la faafiyey, iyadoo ugu baaqday dadka ay sheegtay inay ka shaqeynayaan sidii bulshada u qalqalgelin lahaayeen inay joojiyaan. wiilkii uu dhalay madaxweynaha dalka Uganda oo dhowaan sheegay inuu la wareegi doono magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ayaa xilka laga qaaday. laba xidigga General Musonye ayaa waxa uu ahaa wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, waxaana laga qaaday xilkii taliyaha ciidanka dhulka. hase yeeshee waxaa loo dallacsiiyey darajada genaraal buuxa oo ah heerka ugu sarreeya ee laga gaaro militariga dalka Uganda. waxaase kasii uu ahaan doonaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca howlgallada khaaska ah. generaalkan waxa uu horey u ahaa taliyaha ciidanka khaaska ee u xil saaran ilaalinta madaxweyne Yoweri Museveni. lama oga xilka qaadistiisa iyo dallacsiintiisa haatan lagu sameeyey inay la xiriirto hadaladii muranka badan dhaliyay ee uu Twitterkiisa kusoo qoray labadii maalmood ee ugu dambeysay. isniintii generaalkani waxa uu bartiisa Twitterka kusoo qoray in asaga iyo ciidankiisu ay 2 asbuuc ku qaadan karto inay la wareegaan caasimada dalka dariska la ah ee Kenya ee Nairobi. madaxweynaha dalka Kenya iyo dowladda dalka Kenya ayaa hadalkaasi ku tilmaamay inuu yahay mid gaf ku ah madax banaanida iyo dowladnimada wadanka Kenya, waxayna sheegeen in arrintaas ay uga fadhiyaan dowladda Uganda inay wax ka qabato. ciidamada dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa mar kale dagaal ku dhexmaray deegaanada xuduudka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gobolka Bakool. wararka aynu ka helnay deegaano ka tirsan dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku waramaya inay foodo istareen ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay inay dileen ku dhawaad 30 ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab oo iminka Soomaaliya ka wajahaysa dagaal ka dhan ah oo ay ku qaadeen dowladda iyo dadka shacabka. dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya waxay sheegtay in ciidamadeedu ay dhammaan u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan fircadka kooxda oo muuqda in deegaano ka tirsan dalka Itoobiya ay ka raadinayaan goob ay gabaad ka dhigtaan. dowladda Itoobiya gaar ahaan laamaha ammaanka dowladdeegaanku waxay sheegeen inay burburiyeen saldhigyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada xuduudka dhaca, sidoo kale tan ay ciidamadoodu baacsanayaan fircadka kooxda Al-Shabaab. dowladdeegaanka Soomaalida iyo ciidamo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa horey ugu dagaalamay dhowr deegaan oo ka tirsan dowladdeegaanka kadib markii kooxdu isku dayday inay u talowdo gudaha dalka Itoobiya, halkaas oo ay doonaysay inay saldhigyo ka samaysato. warkii ka daawanayseen Dunida TV waa intaas sidaas nabad geliyo.